odayaashii waxgaradka ku dhaqan magaalada Dharkeengeeyo ayaa waxa isugu yimaadeen kulan ay kaga jawaabayaan hadalkii dhawaan ka soo yeeray madaxweynaha maamul goboleedka Puntland oo ahaa hadalkii uu ka jeediyay kalfadhigii 27aad ee golaha wakiilada Puntland uu ku sheegay in degmada Dharkeengeeyo ay xarumo ku leeyihiin xarakada shabaabul mujaahidiin waxgaradka magaalada Dharkeengeeyo oo isugu soo baxay bartamaha magaalada ayaa waxa ay ka biyadiideen eedeymaha ay Puntland u soo jeedisay ayna ka arimin goboladan ayaa waxa ay arintan ku micneeyeen in Puntland ay ka wado gobolada SSC arimo liid ku ah ammaanka salaanta ka bacdi adduunweynaha oo dhan waxaan halkan kaga hadlaynaa madaxweynaha Puntland sheeganayay laakiin hadda loo yaqaano Cabdiraxmaan Firdhiye eedaynuu u soo jeediyay degmada Dharkeengeeyo iyo dhul badan oo ay degaan beesha dhulbahante oo ku abtirsata Khaatumatu eedaynta uu soo jeediyay oo aan waxba ka jirin waxaan kaloo sheegaynaa faroole marka la sheego run ahaantii waxa weeye wuxuu ku soo galay doorashada markii hore oo uu abaabulay nimanka la yiraahdo burcadbadeeda dhaqaalihii iyo dhaqankii iyo hubkii uu ka helay waxaanu ku siinay madaxnimada ayuu rabshad iyo dil iyo dhibaato idinku abuuray nin waliba baayac mushtariga meel buu ka yaqaanaa ninkaas hadda waxa uu ka bartay dadka Soomaalida inuu dhaqaale kaga raadiyo ama waa al-shabaab ama waa qoladii ayaro dhalatay burcadbadeeda ama nimankii ayaro oo NLF oo la soo qabqabto halkaas uu hadda ka bilaabay baayac mushtariga halkaas uu buu ka yaqaanaa sida aanu aragnay Faroole Firdhiye aanu ka codsanaynaa ummadda Garowe ah ummad badan oo Soomaaliya ama danta guud oo dhan u ah magaalo madax waxa uu Firdhiye uu ku wado isaga iyo mid la mid ah hadeerna il xilka laga dhigo dibna aan loogu soo dooro yiri degmada Dharkeengeeyo iyo meelo badan oo dadka Khaatumatu uu degan yahay oo ilaa 6 meelood ah yaa kamida uu saxaafada u sheegay inay waxba ka jirin odayaasha ayaa waxa ay sheegeen in degmada Dharkeengeeyo uusan ka shaqeyn maamulka Puntland isla markaana uu shaqo ku lahayn Faroole baaqeen in uu faraha kala baxo arimaha magaalada Dharkeengeeyo haddii uu baaqani ka dhaga adeegana ay talaabo ka qaadi doonaan waa sida ay hadalka u dhigeen salaanta iiga horeysa maxaad ka mudaharaadeen oo isugu soo baxdeen maxaad ka mudaharaadeen hadalkii madaxweynaha Puntland hadalkii madaxweynaha Harti kaasaad ka mudaharaadeen waa idinku waxa ayaan daraa dhulka uu cambaaraynayo waa intii xuduudda Itoobiya mas'uulka ka ahay in allaaliya intuu cambaaraynaya dawladda maamulka Faroole ee Puntland waxa mas'uulka dawladda Itoobiya sidaas ay idinku filan idinkana waxa mas'uul idinka ah dawladda Itoobiya xuduudeedana aad ku jirtaan caradu sidaa idinkaga bao iyo waxna naguma arag waxna ma hayno wax mana nihin waxa uu sheegay Khaatumatuuna waanu taageersanahay waanu nahay waa noloshayada iyo dantayada ku jirta waxaan kaloo aan codsanaynaa madaxweynaha maxkamad in loo saaro waxaas oo ceeba nagu jirabay in maxkamad loo saaro adduunweynuhu loo saaro ayaanu ka codsanaynaa adduunweynaha iyo shirka igadba sidaas aanu ka codsanaynaa waynu iska celinaynaa ninka inaad lagaadeeyay iyo inaayay waynu iska celinaynaa waxa weeye dadkii uu mas'uulka ka ahaa raggii baa dhameeyay hadalkii waxaan ku soo noqnoqonaa meesha ma yaalin dadkii uu mas'uulka ka ahaa ninka caayay ee ku tilmaamay adduunweynaha maqashiiyay inay yihiin dalkooda ah iyo dad argagixisa ah waa ka xunaay isagayna u taallaa taas waxa weeye annagu maamul goboleedka Puntland oo hadal ahaan sheegta gobolada SSC oo intooda badan ay ka harimiso Jamhuuriyadda Somaliland
ayaa waxay shacabka goboladani ka dhiidhiyeen qaabka Puntland ay wax u wado. Mahad Cabdi Cali, telefishinka caalamiga Somali Channel, magaalada Dharkeen Genyo.